bismillaahi raxmaani raxiim. ma og tahay shidaalka ugu muhiimsan ee guriga ku shaqeeyo? shidaalka xaaska ama dumarka waa jaceylka, inay ogaato inuu ninkeeda jecel yahay. shidaalka ninkana waa ixtiraamka, inuu ixtiraam ka helo xaaskiisa. shidaalka xaruurtana waa inay arkaan hooyo iyo aabbo isjecel. nabigeena allahuma salli wasallam caleyh wuxuu yidhi, xaaskaagoo cunno afka u geliso waxay u degtaa sadaqo. runtii culummada ama khubarada ku takhasusa cilmi nafsiga carruurta waxay yidhaahdeen, carruurta hadday arkaan aabba oo hooyo cunno afka u gelinayo, carruurtaas waxay ka qaadayaan reenreyn iyo farxad. markay weynaadaanna koriinka caqligooda iyo samirkooda iyo aad ayuu u fiicnaanayaa. marka sunnadaas waa naga maqan tahay haddii aan ummadda islaamka nahay. marka waa inaan sunnadaas nebiga allahuma salli wasallam caleyh aan tixgelinaa mar walba. hadduu ilaah yidhaahdo, fadlan guryihiina ha ka dhigniga, yacni guryihiina ha ka dhigina guri ay ka maran yihiin shidaalka ixtiraamka iyo jaceylka. mar walba fuultaan ka dhiga shidaalka ixtiraamka iyo jaceylka, gaar ahaan waqtiyadan karantiinka lagu jiro oo guriga la fadhiyo. gurigiina ka buuxiya ixtiraam iyo jaceyl. waa walaalkiin Baazi Busuri, TV-ga caalamiga ah Universal TV. بارك الله فيكم.